beeshan ciise weyne ee uqaashay shiifafku hogaaminayaan waxaan leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in kaftaraan ku bilaabaya kullaan iyo ciise way soo naqaanaa magacaygana way hayaano waxaana wasiirkii waxaana dhagahoodu maqli karaynin akhriyay haddana waan idigu soo noqday maanta labadii waxaan nasiib wanaaga labadii jiif caaqil xasan iyo cismaanna way fadhiyaan saaxiibka ibraahimna waa fadhiya horta aad iyo aad baan idiin salaamaya gobolkani waa gobol aad iyo aad runtii u ballaadhan waxaanu intaa ugu hoyeynay kalgacayl xukuumaddu u qabto shacbiga gobolkan ku nool weli ma jirto meel iska nabadoon dilo oolin oo intaa loo hayo wuxuunbaa ka muddo badnaa gobolkaas Sanaag noqodka yagani kii hore uu ka duwan waxa wada socda wasiirkii arrimaha gudaha iyo kii difaaca waxa wada socda taliye ku-xigeenkii bilayska iyo abaanduuli ciidamada qaranka waxa wada socda taliye qeybyadii iyo taliyaashii gobolada ee gobolka oo dhan kaga tagnay ahmiyadda inta lagu xaloosi waxaanu fulinaynaa maanta waa amar iyo fulin socodkii hore maaha guddida amniga ee qaranku shir degdeg bay gashay markii gacanka hadalku yimi madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi baa jeer gareeya waxa go'aan lagu gaaray in gobolkii la tago awaamirta dawladda la fuliyo si ay noqoto amar ka duwan kii hore baladaadii dhageysta maanta waxaanu sidnaa fulin koo waxa ka ah xukuumadda Somaliland ma ogola dubna ugu dulqaadan mayso dad shacbiya oo qoriisita hadda ma maqlaysa wuxuu baa qori loo ogol yahay dadka xukuumadda nabadgelyada ilaaliya ragga darajadaas iyo ciidamada xukuumaddu way ka adagtay nabadgelyada laakiin markii hore dadkeeda ayay u tureysay laakiin saacadda aan joogo qofkii qori lagu arkaa waa dambi waxa amarka la siinayaa ogolaha amnigu madaxweynuhu hogaamin amarku ka soo baxay labada taliyaan idiin sheegay ayaa fulinta ku shaqale labaduna way maqlayaan waxa ku xiga inaanu beeshan ka doonayno inay ku dhawaaqdo inay nabadgelyo qaadatay oo beesha ay isu abtiga yihiin ay nabadgelyo inay ku wada noolaan oo arrinkaas inta aanu inaga dhaafin ay qaadato waxa raaca inta markaanu helno in xukuumaddu gogashii nabadda dhigayso oo ilaaminayso goobta iyo waqtiga saynu u dhamayno waxa idin dhex maray idinkii abtiyaasha dhawaaqeedana wasaaradda arrimaha gudaha idin soo gaarsiinaysa laakiin labada fariimoodanu sidna waxa weeye dhalinyaroy kulle kuwa madaxa dhaadheer la ku qoriyaastay haban mananaya inaan qori dambe uu dambi yahay xukuumaddu ma qori sida karta odayaashana waxaanu marti uga nahay inay nabadgelyadii ku dhawaaqaan waxaan dub ugu noqonayaa gobolka waxaanu maraynaa maalintii shanaad baan maraynaa waxaanu ka soo bilownay xariirad laba habeen baanu u heeyay waxaan ugu ducaynayaa dadka halkaa ku nool magacooda iyo xariirtii bay isu yimi magaca samada laga bixiyaa waxaan ugu nimid dad xariira oo aan kala shirin oo aan kala qixin oo wada jooga waana meel baan ugu wada hadlaysaanoo anigu maanaan kala qixin waxna isumaanaan sheegin waa wada degan wax runtii aad loogu farxaa aad iyo aad baan ugu ducayn laba habeen baanu la joognay qofba moo hadala waxaanu daanuna fariintiida soo gaarsiinay idigu hadal baa uma baahnidin waxaanu ku xogsiinay habaas beel quraanu ugu nimid oo keligeeda waxaanu reer habaasow
كل ودياشي قروة فرد يعني وكليجين منهم من ولا قدين هيابان waxaan ku haynaa haddii beeshii kale ka tagtay guryahoodii iyo beerahoodii hantida ahaa way nabadgeliyeen si gobonimo laba ka yeeleen guryihiina waanu qafilay yidhaahdeen beeriina hadday lacag hoos taale lacagtiisu dhiba hoos taalla aad baan uga mahadnaqnay laakiin waxa ka maqnayd quruxdii wada noolaanshaha haddii aanu ka nimi halkan baanu soo marnay runtii beesho aad uma diyaar garoon way kala maqnaayeen laakiin laba oday oo hore isu naqaanay Aqal Ibrahim iyo aqal kale ku kulanay geedka aad baan u sheekaysan waxaan ciise waan soogan hadday iga dudana iga yar gabadeen fariintu wad gaarsiinaysa tagi maayo gobolka ku meereysanayaa saylac maan u yar fariisanayaa fariinta gaarsi oo soo noqonayaa sidaas aan ku kala tagnay haddii aanu halkaa ka tagnay waxaanu tagnay fiqiyaad runtii si gobonimo leh oo sharaf leh ayaa la noo soo dhaway kiiloomitir baa la naga hor yimi waliba wadadu iyadoo rafaacay waan wada qadaynay wixii aanu sidnay ee fariintahayd waa u sheegan kolay saasadaha ka daawateen si gobonimo lan muran lahayn bay uga jawaabeen waxaan qorigiina inamadeedu waa fasaxayna qoriga maanaan doonaynin afar iyo soddon sanood maanaan qaadan maantana isagoo amba roob helay amba uska galaba xaarkiisina dilay kol hadday xukuumaddu damaanad qaadayso nabadgelyadii diyaar baan nabadiina waa qaadan anana aad iyo aad baan uga mahadnaq maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waynagan wada joognaa waxay ugu haray gobolka garbada daran islaana caawa u hoyo oo in yar sharayto hadal igaga soo duulay laguna maqayaan talaabana ka qaad nuxurka hadalkaygu wuxuu yahay maanta waftigayga ballaaran ee xukuumadda dhan ee wada socda maanta waqtigeenu joognaa waqtigii hore ma aha ciise Somaliland looga baqi maayo dad soo halgamay oo dhaawac halkan fadhiya oo hebel iyo hebel u garanayn laakiin ciise wax uu yartirsanaya waa ogni gogoshu soo diyaar wada ku bishaaraynaya dadku hadday meel wada joogaan mar walba waxay kala tirsanayaan maanta wixii aynu sugaynay ayaa lagu dhawaaqay haddii lagu dhawaaqay oo nu samraynay oo inta aanu qabatay ku jirnay beelahana ay ka mid ahaayeen beelihii soo halgamay ee waliba samirka badan leh laga afaristo kaasano dawladnimadu inaanay wax badan ka soo gaarin markiiba godadka waxa ka soo baxay dadkii qarannimadeena diidanaa waxay taasi khasab inagu noqotay inaynu horto midowno waayo itiraafku wanaag badan ugu wataa cadaawad badan uu leeyahay mabay qarsanba leeyahay dad xoro isu taliyo noqon kara sababahan maanta wanaageenu aynu doonayno iska soo dhawaano waxa weeye hal caado baynu maanta wada yeelanayna oo kaliya waa wixii diidan qarannimada ayuunu yeelanayna haddii se gudaheena marba dhinac loo yar cararo wuxuu baa la xisaabinayaa in qaran dubisu yahay waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay idinkoo si wanaagsan oo sharaf u soo shiray qarannimadiina muujiyey sidaa aan ii sheegay nabaddu markay noo dhammaato gogashii xukuumadda dhigaysa wixii labadaa beelood kala tirsanayeen ilaahay ku abuuray oo meel ku wada abuuray sidii loo sheegayena ilaa qiyaamaha la rogay wada oolaysa waxa gobonimo ku lahaydeen waligiin xabad isku baydaan fiiqin maantana qadar Allah maanta dad shacab Soomaaliyeed cidla iska helaya ma jiro ciidamadu way ku filan yihiin amarka ciidamada ayaa soconaya cidii gardaran xukuumadda gacanta saaraysa horta fariintanu sidnaa maanta waa taa waxaan idinka rajaynaynaa
in arrinkaasi khayr qabtaa nooga jawaabta wixii dambe xukuumadda ayay u taalla gogasha iyo ku dhawaaqideeda waxaan intaa ku darayaa wiigaga mas'uula caaqilka abtiga u tihiin aniga soo qaxaystay hantiisaan helay aan ogaadalo ka soo jeedo iguma doormo wasiirka ayna keenay saddex habeen baan dhaxan ku wararkaagaan helay ciisiga gudubirtiis ku dhex jiraatay adigu waad raacaysaa laakiin wuxuu meel kale laga daraa ana watay tiina way cadaatay in raalli ka ahaydeen